وفودن gaara degmada Baardheere waxaa kala hogaaminaya wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubbaland waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol bahda waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweynta garoonka kadib mas'uuliyiintan ayaa u soo gudbay dhanka magaalada halkaasi oo shaqadu ahayd dhagax dhigga dugsiga tababarka macallimiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo ay nasiib u yeelatay in laga hirgeliyo degmada Baardheere goobta dhagax dhigga ugu horreyn waxaa ka hadlay مسؤولينta heer degmo iyo heer gobol iyagoo u mahad celiyay labada wasaaradda waxbarasho jaala wasiirayaal xildhibaano degmada Baardheere oo maanta nasiib u yeelan in laga dhagax dhigo kolleejkii macallimiinta ee labada dowlad goboleed Jubbaland iyo Koonfur Galbeed dhulkan waa dhulkii ay degmada ugu tala gashay in kolleejkaas maxaan ku raadaayo laga asaaso oo uu ka dhismo maanta farxad bay inoo tahay in jaamacad aad u weyn oo laba dowlad goboleed ka dhaxayso in maanta loo dhagax dhigo gaar ahaan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baardheere mudane wasiirayaal iyo xildhibaano aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa waa ku faraxsanahay inaad noo timaadaan wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubbaland Macallin Maxamed Ibraahim oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in degmada Baardheere ay noqotay mid nasiib u yeelatay in laga hirgeliyo dugsigan oo ay ka soo bixi doonaan macallimiinta dhanka waxbarashada dowlad goboleedka Jubbaland iyo Koonfur Galbeed maanta maxadka macallimiinta lagu tababarayay yaa halkan laga furayaa isbedel weyn baa ku imaan doonta waxba laga baran doonaa shaqo laga heli doonaa dhaqdhaqaaqa ka imaan doona laba diyaaradood oo midna Kismaayo laga soo kireeyay midna laga soo kireeyay xamar baa isku imaaday waa hormar weeyaan Baardheere inay fahantaa la rabaa inay taas hormar tahay talaabadan hadda la qaadayo ee maxadka lagu sameynayana waa hormar ayadana waa talaabo horuqaad barina talaabo kale oo Ilaahay hadduu ku faraxdaan yaa imaanaya tartiib baa la rabaa in saa barnaamijka loo qaato oo loo galo ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in mashruucan uu ka mid yahay mashruuc ay wasaaradda waxbarashada ka wado dhammaan maamul goboleedyada dalka kuwaasi oo la doonayo in lagu horumariyo waxbarashada guud ahaan ee dalka aad ayaan ugu faraxsanahay magaalada Baardheere inaan maanta joogno Baardheere taariikhdiisa lagama sheekaynayo idinka ku nool laakiin sida laga dhawaajiyay meel cilmiga diinta loo raacdo aha hadda waxaan rabnaa taas inaan ku darno meesha aqoonti iftiinka khaasatan labadan maamul goboleed iftiinka waxbarashada uu ka yimaado inay bartaan maanta aan dhagax dhigeen inay noqoto ayaan rajaynaynaa haddii ay beedmo wasaaradda waxbarashada meeshaan qiimo weyn ugu fadhidaa maxaa yeelay waxaan rabnaa mustaqbalka macallimiinta meeshaan iyo 4 meel oo kale oo 2 ay dhisan tahay 3 kalena ay tan ka bilaaban tahay in waqti gaaban macallinka Soomaaliyeed ee dugsiga hoose dhexe dhigo uu ka soo baxo Baardheere waa magaalada la rabo inay isku hayso labada maamul goboleed oo labada maamul goboleed inay isku milisan laga rabo marka mas'uuliyad weyn ay saaran hadaatiin mas'uuliyiintii iyo shacabkii iyo bulshadii Baardheere maantay waxaan dhagax dhigaynaa meel aan rabnay inaan liibaan ka gaarno dhagax dhigga kadib mas'uuliyiintan ayaa kormeeray dugsigii ugu weynaa degmada Baardheere xilligii dawladda dhexe kaasi oo uu ka muuqdo burbur lixaad leh waxaana wasiirku sheegay in wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay dhawaan ka howlgali doonto sidii dib-u-dayactir loogu sameyn lahaa dugsigan oo u muhiim ah waxbarashada degmada Baardheere Idlaadan Maxamed warbaahinta dowladda Puntland degmada Baardheere ee gobolka Gedo